sahar Soomaalidu qabiilkay ku nool yihiin ilaa iyo tan iyo waagi dhasheen qabiil bay ku noolaayeen laakiin qaabka ay ugu noolaayeen baa wuxuu ahaa qaab aad u xun xageebu ka soo jeeday because وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله يحب المتقين ويقرأ مرين نول بنا هذا معناه هذا وفهم كرام محاصل لقوا أمريكا محاصل لقوا وضد مسلمة الصلاة دي وذا كذا وقرابه وأهل وحدد وحجاله السبب كانت إن قبيلك اسكو حميان أو دبعتها أنت على دلكينا لجبر بريو سهروا محاصل لقوا حداد مسكح هذا إيو dhalinyarnimadaada iyo waayo aragnimadaada iyo intaa jirtay ma istiri war qabiilkan umadeena dhibay cid mas'uulka ka ah inay heerkan ugu gaarsiiso waayo marna ma istiri saar wallahi horta dulaali malaali maash dulaali malaal waa carabta deentay gabi ku jiray heesta waa bariya ku jirtay dadka kii dhargo daran dib socodna isaga marka waxa ku dhex jira kaasoo kale ku jira dadkii marka waxay dadka waxa ku jira dad maaragtay kala gadaayo oo maaragtay saas fiican war jagadan aan qabsano qabiil hebel saas yeelo marka dad baa kala dilay qabiilka waxa keenay saas waa in lagu qaraabto reer hebel baanahay ma fiicno واقر Soomaali baanahay aqafaan saar adigu gabar aad u yar baa tahay xilliga qabiilka lagu dhaqmayeen waxaan u maleynayaa inaad aad u yareed laakiin waxaad soo gaartay dadka Soomaalidu wada nool dadka Soomaalidu isku soo hoyda dadka Soomaalidu aan isqadin hadii aad baxdo guriga ku soo hoyatid waa lagu sooriyaa maanta waa la kala baqaa aad baa loo kala baqaa kan midka kale ka shakinayo leekan amuuye dhibaatada aad u fara badan tahay aad weyn wallahi dadku waysan hadleenine dadka waa saameysay dhibaatada walaalo qof walba dhibto way saameysay u geystay dhibka qabiilku wadankeena u geystay oo dadkeena u geystay dadku waa saameysay waxa arkaysa dad ama qoys 9 wiil dhalay xilli yimaadeen wadankan dibadaha la yimaadeen dibadaha markay la yimaadeen wiilashiiba male meel lagu sheego male soo dhibaato ma عيال بدن هذه وقتك يجاقي لهاين وقتك دكسي قديقن لاين سكول بديقن لاين وقتك يحتر لهاين هذا حقي لغو شيء قدك واسوا ابو دبكا ستاغن الهي ودنك نبد الله نوغ ديغو واو ساره رun ahaantii waxa jira ciyaal badan oo lagu keenay halkan iyagan waali la socon dhibaatadiina dad badan way saameysay waxa soo dhan waxa keenay dagaalka marka adiga xilligan heesahaagan wadaniga ah هسيه أدم محمود عيسى جمجلع جنير رحمه الله سيه هسه بدن مقادي تري هستي هيد إنان كو أديجو عدو كائلا شو آيها قتليان أحد كوجو مريا أرلجيجو يا وأسمي جنير رحمه الله سيه عبد البشير النبور هاي هم الذي هيجن ما فهمتي وحي معناه إنان كو أديجو عدو كائلا شو آيها قتليان أحد كوجو مريا ما أنت ودنك عدو قال لوسه جامية ودنك ما أنت ولا كلا قطع واحد مغلي سعر هردن وحي وتاندل عدانة waxa lagu leeyahay waa gaalada reer hebel arintaas bal ka waran macnaha heerkay gaarsiisay Soomaalida iyo erayga Maxamed Ciise Tamajir uu leeyahay balka isku labadaas qof dadka su'aal ma kala duwana waa kala duwan aad oo weyn in la yiraahdo waddanka macdan baa ku jirta kaalay baarta shidaal buu leeyahay kaalay baarta kii qashin ku shubay iyo sun waxa leeyahay kaalay ku shub macnaha dalkan iyo dadkiisa nimcadi baa daldalanaya dadkeena waxa la isugu dhiibo qoriyo أصل أهم سومالي حق سوجي ده سهل. أصل أهم سومالي ماشي كسوجي ده واحد تاريخ مكان سهل. سومالي هرت أنا هرت وليه وياهي. هاي. عرفت وليه وياهي قلت لك أصلاً سومالي حق سوجي ده ضد ولي جود بإسراع صن أو من صن أو قارن مضى ده يودن كاري الشرفت ده إلى شيء هاين أو ويا شهر. لكن أمضاها أنا هدا أو مارتي. كو هذا جرا. دلالين تنقضي. فأيضا إلين ملابو إلى ودك أنا نوقفتي أخ. إن شاء الله تعالى بإذن الكريم. إن سار وحن جعلان لها إن واحد بدل ما هذا إن برنامج كوسي جرني. إن عبد الكريم وحوف لها ماشي وحوف جعلها بل إن هذا السوق بجبينه لا تكون هيسين نقعد سنيان. بل هيسان ودني جاه إن هذا الصومالي أسوق بينه. هيسان ودني جاه هذا عصب وبرلمانك وحسميه عبد الكريم. برهان برهان نور فارح يا سمي الموسيقى وحها مختار أورمو فرسمتنا وحي أهد أستاذ فنان نور أحمد نور عبده واو ما قال لك مسكين ما هدا وديال سيدا مقليسان سهر وحي نو هيسا هيسا fara badan kuwaas oo kusoo gudbin doonto studio Sama TV waxaan filayaa inay dad badan ku arki doonaan Sama TV sahro heesaheeda waxaan jeclaan lahaa bal haatan inaan Cabdi Kariim idinku wareejiyo
bal wixii barnaamijka inta ka hartay uu inoo hayo bal dadweynaha Soomaaliyeed inuu soo gudbiyo dhammaantiin waxaan leeyahay anigu Cawil Nuur Shira oo maanta barnaamijka idin xiriirinaya iyo saaxiibkay Cabdikariin Ciise oo isaguna ah barnaamij soo saaraha maanta iyo saaxiibkay Maxamed Cali oo isaguna ah farsamayaqaanka Suudiya Sama TV ee magaalada Minneapolis dhammaantay intaan dib u kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo amaan Allah sidaa wada dambe oo xiiso leh Tabubu isafray alanka iso diray tabubu isafray wuxuu yidhi dadkaygu I
darmaan yahay dhulkan sugaya iyagu un islooxa dagaalan dhammaan bay dacalka weli dacal